faaliyaha qaranka waxaa u suurta gashay in ay dood wadaag u sameeyaan madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo waliba xurguf aad u weyn dhexdooda taala doodaas iyo sida ay u dhacday iyo meesha ay ku dhacday iyo qaababka kuraasta loogu wada kacay daawadayaal ila daawada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وناكسن دادكنا داوانا يوكونا سو دوادا برنامج قار او دود او انو كو دودسين انو مدحوينها دولة فدرالك صوماليا مدن حسن شيخ محمود يو رئيس الوزراء صوماليا مدن عبدولي الشيخ احمد مدن مدحويني يا مدن رئيس الوزراء كوسو دوادا marka hore barnaamij gaar ah oo dood ah oo barnaamijka faaliyaha qaranka idin qabanaya caawa waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo aan nooga aqbasheen idinkoo kala xanaaqsan marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaliyaha qaranka waa ku dhownahay barnaamijka waa ku mahadsantihiin Soomaaliya toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa taagnaa khilaaf idin dhaxeeya muxuu ku saleysan yahay khilaafka idin dhaxeeya aku hormaro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya haye mudane madaxweyne waad mahadsan tahay khilaafka meesha waxa jira weeye ninkan ra'iisul wasaaraha ah oo walaalkay ah waa nin madaxa adag oo aan doonayn in higsigii Soomaaliya ay higsanaysay in aysan gaarin buu jecel yahay waayo xilka midka uu leeyahay iyo midka laga leeyahay ma kala garanayo wax walba waa isku khalday haddii wax in loo sheego doonana ayuu yidhi wuu isbuufiyey marka halka meesha uu ku jiro waxa weeye ninkan asaga anigaa marka hore bulshada ka soo xulay oo kala soo baxay oo moodayey inuu yahay nin garabkayga istaagayo oo Soomaaliya samata bixinteeda igala shaqaynayo balse wuxuu noqday nin hoos ii jiidayo ummadda Soomaaliyeedna hoos u jiidayo sidaa darteed wuxuu warkii waa naga dheeraaday wuxuuna u gudbay hay-adaha annaga naga sarreeyo dalkaani wuxuu leeyahay baarlamaan xoog leh oo dhega fudud buu leeyahay labadii isqabatana kala saari karo sidaa darteed nin gardaran gar lama siinayo waa iga faradadiyey aniga haye waayahay haye waad maqlaysay madaxweynaha waad iska timid waxaana ku dhaqaaqday waxa aad doonto haye mudan ra'iisul wasaare si wanaagsan ayaan u maqlayay annagoo soo fadhina inuu ka dhawaajiyo ereyada koobaad oo weliba qaladka hadda igu ah war wuxuu ku leeyahay anaa soo abuuray anaa meesha keenay ima keensanay qaranka Soomaaliya lay keenay mana ihi shakhsi uu leeyahay waxaan ahay shakhsi Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaare ah awoodda aan ku leeyahay dowladda ayuu ka soo horjeedaa hadday bahashu tagto intooxsi waxa loo yaqaan wuxuu ka dhawaajiyey baarlamaan xoog badan inuu leeyahay dalka Soomaaliya waayahay baarlamaankii haddaan u qaybsanay laba goobood sida yaanyadii aan laba goobood u qaybsanay arrintaasi madaxweynaha kuma haboono isaguna wuu xaabsaday baarlamaanka dhinaciis aniguna waxaan xaabsaday baarlamaanka dhinaciisa inkastay maalkadhac ku tahay dadweynaha Soomaaliya ninkii wuxuu yidhi wixii jiraba cakaaray imaanayaan dalkan ma degayo ilaa adiga xilka lagaa qaado maadaama aad guda weyda xilkaada waayo aniga markaad la dhisayo wasiiro xaq waxaad u leedahay inaad aniga ila timaado oo aan kula farsameeyo aan ugu ogolaado taliyayaasha ciidamada na anaa iska leh adigu shaqadaada kuma jirta mana ku khusaydo waa timiday bari waa tagtay waa ka soo laabatay waxaad gashay isku shaandhayn
taliyayaasha inaad kala bedesho howl aan adiga hawshaada ahayn ayaad dhaxda ka gashay dad weyn aadan ka bixi karin baad isgelisay sidaa darteed aniga codkii waa gudbiyey golaha baarlamaankaan u gudbiyey haddee waxaad dhowrtaaba waa mooshin iyo wixii aad ka hesho waxaad doonaysaa madaxweyne inaad adigu meel kasta tagto aniguna aanan tallaabo qaadin oonan dawladdan madaxa ka ahay anigoo ka socda inaan meel tegin ayaad doonaysaa ma si soomaaliya hore ugu socoto idinkoo u danaynaya waddanka maad wada shaqaysaan oo aada heshiisaan waxaa siinayaa madaxweynaha waddankani hore wuxuu u socon karaa markii ra-iisul wasaare daacada la helo laakiin haddii ra-iisul wasaare laalaab iyo iska dabawareeg wada waddanka uu joogo higsigii iyo ballantii aan lahayn adduunyadoodan ay naga filaysay 2016 in ay doorasho xura Soomaaliya gasho ma suurtoobaydo ilaa ra-iisul wasaarahan laga rido ee ra-iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub oo nadiif ah la keeno oo wadaniyiin ah mudane madaxweyne halkuu ka soo bilowday marka hore khilaafka wuxuu ka soo bilowday meel aan laga waarsan karin sida raggii u soo halgamay federaalka Soomaaliland federaal ma aqaanine raggii u soo halgamay oo guntiga dhiisha isaga dhigay ayuu kala tuuray ciidan iyo wasiiro inta ka dhaxle halkaasoo ka bilowda khilaafka hay waka hay waayahay mudane ra-iisul wasaare maxaa xal ah xalka intuu ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa madaxweynaha oo shaqaaqada iska daaya awoodda aan dawladda ku leeyahana iyo nabadgelsha si aan aniguna aan uga shaqeeyo laakiin inta madaxweynuhu uu sidaa u shaqaynayo waa haddee burburka un baan kusii soconaynahay soomaaliduna way ragaaday oo way ragaaday oo way ragaaday madaxweynaha sii ragaadinaya madaxweyne hadduu ragaadka ka daayo annagaa ka daynaya laakiin intuu joogaan joogaya markuu tagana waan tegaya waayahay haddii madaxweyne baarlamaanka khilaafka idiin dhexeeya adigii ra-iisul wasaaraha oo idinkala saari waayo maxaa xiga waxaa xigo hawl degdeg ah ayaan ku soo rogayaa dalka hay waayo haddii baarlamaanka uma malayn maayo aniga baarlamaanka inuuna xallin weynayo arrimahan adduunyada qayladeedana codtayda waxba kama ah waayo dalkan nalama leh Soomaaliya iska leh Soomaalina aniga madaxweyne u ah ma garatay marka ayaga hadalkooda iyo wax ay noo hayaan aba yaraadaan oo maamulka ah ma jiraan haddaad madaxweyne u tahay Soomaaliya ama ra-iisul wasaarihii Soomaaliyana ogow anaa kaa dhigay haddana xalku wuxuu ku jiraa in adiga meesha lagaa wareejiyo oo ra-iisul wasaare cusub la doorto markii khilaaf sidaan oo kale u yimaado waxaa loo laabanaya waa dastuurka laba qodob oo isku mid ah oo madaxweynahana sharci siinayo ra-isul wasaarahana sharci siinayo ku jiro ma la dhihi karaa waxay dhibaatada ka taagantaha waa dastuurka wari anigu marka laba dastuur inay arrintu ay qusayso aniga madaxweyne nin baan nahay waana isaynaa waana mahadsan tahay saacaddii ayaa meelaan ka ballansanaha badan shaqan tagayaa waa mahadsan tihiin haddaad tihiin bahda faariha qaranka gabagabadii ugu dambeyntii ra-iisul wasaare waxaa kaa codsanaya gabagabadii ugu dambeyntii barnaamijkaa joognaa waxaa kaa codsanaya shacabka Soomaaliyeed oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aa u tihiin oo idin daawanayo khilaafkiinana la socday wax badan muddooyinkan dambe maxaa ugu baaqaysiin labadiiba kolley anigu waa jecelahay inuu xal la gaaro laakiin waxaa iyadan hoosta uga jirta aniga madaxweynuhu waxaan kala leenahay mar labaad waa mahadsan shacabka assalaamu calaykum hay waay madaxweyne 4 sano oo sharci lay doortay 4 sanana waa dhamaysanayaa Soomaaliyana inaan meel wanaagsan gaarsiiyo ayaan kitaab ugu dhaartay ma garatay anigu halkaygiiaan kowadayaa hawsha insha allahu laakiin xalka ummadda wuxuu ku jiraa baarlamaankuna waa maqlayaa waana ogyahay ninkaas
in meesha laga wareejiyo oo soomaali muwaadin xalaal ah oo nadiif ah in la keeno meesha bedelkiisa ra-iisul wasaare cusub si uu ku dhiso dowlad cusub. waa mahadsantihiin madaxweynaha. kuwaasi waxay ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo aan ku wareysanaynay barnaamij gaar ah oo dood ah oo barnaamijkeena faaliyaha qaranka.